sharci ayaan halkan ka aqoonsanay golaha shacabka wuxuu maray aqalka sare waxaa soo gudbisay xukuumadda doorashooyinka dalka in lagu qabto madaxweynaha jamhuuriyadda saxiixay haddii ay ku jireen xeerar waxay ahayd horta sharciga haddii wax ka qaldamaan iyo habraacyo haddii la sameeyo sida ku qoran qaabkii loogu dhiibay dhammaystirka xeerarka waxaan caddaynay in sharcigii doorashooyinka dalka aan ansixinay uu dhammaystirnay si fiican yoolkayaan la dacal marin amendmentii 4 qodob ina looma keenin xeer socdaana loo keenay guddigu wuxuu ballansan yahay 27-ka bisha oo ay ka dhiman tahay 6 beri maalinta 27aad guddiga doorashooyinka madaxa bannaana oo sharcigaas doorashada ku qaban lahaa doorashada dalka 6 beri oo haray hortiisaan falanqaynay hortiisaan xeerar samaynay ma ayagaana yiri guddiga intay yimaadeen mase guddoonkay kula hantameen sharcigaan 4 xeer u soo sameeya hadday ku qaban karaan doorasho intay ha yimaadaan 27-ka tan iyo maalintii la ansixiyey guddiga waxay dastuurku qabaa inay warbixin keenaan sanadkii 3 jeer wax ka bedelan maaha warbixinta ay keenayaan awalan waa in sharciga doorashada dalka ee markii ugu horeysay xukuumaddu ansixisay anigu shaqi baarlamaan aan ku jiray xukuumadii dalka soo maraan joogay weligeed teeram dhammaanayo xukuumad sharci darro doorasho soo gudbisay xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre ugu horeysay golo baarlamaan oo golo shacab oo ansixiyana golahana ugu horeeya madaxweyne saxiixa sharci doorashada dalkana maxamed cabdullaahi farmaajo ugu horeeya kuwaashii laba maaha walaalo waa isaga waxaan rabnaa guddiga miyaana yiri horta sharcigaan doorashada waxbaa ka dhiman maxaan 4 qodob uga soo dhex saarnay guddoonkeena sharafta leh ha noo caddeeyaan haddii xan lagu qaaday horta 4 qodob haddaan xaq lagu soo qaadin oo ah doorashada kuraasta la asteeyay iyo matalaadda gobolka banaadir iyo arrimaha somaliland banaadir xildhibaan carab ka soo boodaysa golaha shacabka 20kii sano dalka jiray 5tii baarlamaan oo ku jiray maqaamka muqdisho inay go'aan ka gaaraan ay ahayd maqaamka iyo matalaadda waa laba arrin oo kala duwan mar haddaan maqaamka meel saar weynay matalaadda u malayn maayee ilaahay ha idinka keeno horta laakiin waa laydinkaga fadhiya maxaa loo diiday kuraas aan lala tartamin maxaan u qoondaynayaa haween xeerarka ha lagu daro kuraas aan lagu tartamin caalamkay ka jirtaa kuraas midnaana caalamkay ka jirtaa maxaa rag iyo dumar isugugu haysanaa marka astaynta kuraasta marka waxaan rabaa qoondada haweenka in loo qaybiyo labo kuwa aan lala tartamin iyo gabdho la tartamaya laga dhigo aragtidayda marka ku salaysan waa saas waa mahadsan yahay guddoonkeena waa mahadsan yahay xukuumaddii soo gudbisay waa mahadsan yahay madaxweynihii saxiixay mar hore in sharcigani uu noqdo waxaan rabaa inaan hadalkayga dhammaadkiisa ku soo gabagabeeyo yaynaan tala farayna ka bixinin maanta ay idinla gudboon tahay mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walaalahay saaxiibaday jaalayaashay marooyaasha dalka waxaan idin leeyahay annaga haddii guddiga madaxa bannaan sheegi waaye meesha aan u soconno oo loo sharciga loo dejiyey annagaa sheegayna cid diidi kartana ma jirto waan sii hormarayaa baarlamaanka 10aad baarlamaan cod iyo qof lagu soo doorto 11aada bedelayaan awood u leenahay inaan dhaano qof kastoo anafooda qof kastoo is afuufa qof yiraahdo anaa ah innagaa ka shirayna leys amaahina maayo
أحمد ويسعدوه هؤلاء هذا المنبو بعددها أسكتين ليس ما حنا ما تواجب قرنا إذا صار مصير ومضيقة إذا صار وكيل الذي شعب كاتين ثلاثة يقول يدكم بوضايا يينا نسكو قبسنا مثلات هوين يقراص أستيسن يينا نسكو قبسنا وبالله التوفيق